jiray howlgal ay qabteen ay galeen ciidamada booliisku ay bilaabeen labadii bishii saddexaad 2011 waxaa howlgalkaas lagu soo qabtay oo maxkamadda lagu horkeenay 32 eedaysane waxaa lagu horkeenay 32 kaas eedaysane gaari saaruf ah 15,000 oo dhalo oo khamri ah sidee oo noocyada khamriga kala duwan anagu ma kala naqaan lagu sheegayo sidee duub oo xashiish ah markii intaas maxkamadda la horkeenay 3 aakee tahay 47 iyo qori faal ah qori baasuuka oo noloshay inuu booliisku hayo oo iyagana howlgalkaas lagu qabtay oo aan markaa maxkamadda la horkeenin maxkamaddu waxay xeeraan inta hor dhigtay eedda ku eedeynaysa qodobada 116 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 416 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed 413 la akhriyo 96 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay eedaynta xeeraan dhageysatayna يعني dadka wax lagu qabtay qiraalkoodii iyo calaamadii marag muujinta oo ah khamridii qoryihii iyo xashiishadii gaarigii saarufka ahaa oo khamrada lagu qabtay maxkamaddu maanta waxay xukun ku riday khamradii in la gubo